dalkaani doorashada dhan waa ka soo guuray u noqon maayo walaalayaal dawladaan nahay una qabatayna laga qaaday deynana laga cafiyay si dawlad jirtaana loola macaamiloha inaan sidii dawlad jirta u dhaqmi weynaa saxma wariyaa raalli ka doorashada dibadda yaa waa qofka ku qanacsan oo inay cadaalad ahayd oo sax ahayd oo aan la isku dulmin oo aan la isku joor falin oo khaladaad aanay ka dhicin mustawa kasta qofka ku qanacsan waayo ma jiro ma arag kulay baanay qofka ku qanacsan oo doorashadii aan rabaa dhaayano laakiin nin siyaasi oo dantiisa ka dhax arkay doorashada dadbanay inay socoto oo teendadii maxaan ku afisoono lagu tiilay ee meeshaas dana ka gashay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal daw ma aha in kaas la dhageysto oo la dhageysan waayo codka hay'adaha dawladda ee idinku aad dhisateen ee samaysateen oo lagu kalsoonaan waayo codka hay'adaha dawladda ee idinku aad samaysateen haday tahay dawlad dhexe iyo haday tahay dawlad xubinka dawladaha dawlad goboleedyada xubinta ka dawladda federaalka haday tahay institutions ka jira aan ku qanacsanaano dalkaani doorashada dhan waa ka soo guuray u noqon maayo ilaahay ilaakiisa waa qof iyo hal cod waayo madaxweynaha jamhuuriyadda laga soo bilaabo ilaa councilka degmada heblaayo laga keeno waa loo coday waa la doorana dadka doorana inta lagu dhacay iyo hebla xagga dib uga dhacay waa la daahay waxa soo dhan oo maxaan ku raasay sifaadka la bixinayaa hadafka waa wax muhiim ka meesha u socono inaan gaarno yaa muhiim ah safar dheer hadad galaysid inaad qodax ku istaagtay iyo inaad ku hartaa turiyootid iyo inaad bahal meel kaaga soo baxay iyo kulli waa suurtagal laakiin haddaad hantaa turiyootad gadaal u noqoto safarkii meesha u socoto gaari maysid safaraan u soconaa safarkan u soconaa waa qof iyo cod wax kasta oo jirana waa u maraynaa si aan u gaarno qof iyo cod sida nidaamku qabo dastuurka hadda noo degan qabo ka aan hadda dib u eegayno qodobada waqtigan la jaanqa dastuurkeena 12 sano ka hor la sameeyay 12 sano ka hor xaaladdu dalku joogay maanta ma joogo kalsoonida dadka Soomaaliyeed dawladnimada ay ku qabeen maanta ma joogto meesha xaraba dadka Soomaaliyeed inay ku qanacsanaadaan doorashada qof powerka awoodda ilaahay iskala dadka loo celinaa dadku inay doortaan waay war Soomaaliyeed dabarka 34 sano ummadeena ku xirnay inaan gooynaa rabno kuwa dabarka inuu ku sii xirnaada rabo dhagihiina u fuulno waa dardaaran odaya dardaarankaas waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo wax yani aan sabab aan uga hakanayna ma jirto waa gaarina nidaamka sharciga la tashiga isqancinta isdhageysiga annagoo wadno waad ogtihiin inta jeer oo siyaasiyiinta waaweyn dalkan intaan dibadaha ayagoo jiro la fariisanay dhageysanay haday aniga madaxtooyada tahay xukuumadda haday tahay guddoonka iyo maxaa golay baarlamaanka haday tahay intaan la fadhiisanay maxay idin la tahay aan dhahan kadib aan qof iyo koox ula fadhiisanay dalka gudihiisa safar dibadda anagoo joognaba aan soo wada hadal isla aragnay nimana meel ay u caddahay doorashadii dadbaneed iyo dalka inuu meesha ka dhaqaaqin iyo meesha la joogo in la isku haayo iyo yaayna idinku marshayn xorriyadda la ka qaadi karo qof Soomaali ah xorriyad laga qaadi karo ma jirto qof Soomaali ah oo lagu khasbi karo waxaan u rabin ma jirto qof Soomaali ah xukun aan u rabin la dul saari kara hayna ma jirto yaa la idin cabsi gelinin yaa la idin baqdin gelinin dalku wanaagaasna uu soo maray haddana meesha u sii socdaahay wanaag badan ayaa ka jira waana gaarsiinaynaa ilaahay idinkiisa mar kale dalka Soomaaliyeed meel kasta aan leeyahay guuleysta waagu waa dhow yahay inuu bariyo haddii aan yiraahdo maalmihii wacnaana way soo socdaan aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.